بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا وركا ساعدة تلفزيون كعالمي سومسا تي في او استوديو مقدشان إذن كجسو قدبيو أنا قاعد فتح محمود سيادة رزونا mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho kaasoo ay kaga hadlayeen dib u eegista xeeroosaadka baarlamaanka Soomaaliya qodobo kamid ah kuwaas oo la sheegay in mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya qaar kamid ah dhawaan ay ka doodeen qodobada ay hore kaga soo doodeen mudanayaasha baarlamaanka ayaa qayb ka ahaa kuwa ku qornaa xeeroosaadka baarlamaanka iyo waliba dastuurka cusub ee dalka iyadoona laalay ilaa iyo 3 qodob hore u laalay waxaana mudanayaasha baarlamaanka kulankooda maanta dhanka kalena uu qayb ka noqonaya ama uu daba socdaa isla kulankaasi dawladda dalka Uganda iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ka wada hadlayaan xanaaqii dawladda Uganda ay iyadu sida xoog ah kaga soo baxay kaasi oo ay ku sheegeen in ay ciidamadooda kala baxayaan dalal badan oo Afrika oo ay kamid tahay dalka Soomaaliya ciidamada Uganda afayeen u hadlay dawladda dalka Uganda ayaa sheegay in ay qaramada midoobay ay ka wada hadlayaan maanta sidii loo xalin lahaa khilaafaadka kala duwan ee ku aadan in ciidamada Uganda ay kala baxdo Soomaaliya iyo dalal kale oo Afrika afayeenku sheegay in laga hadli doono eedamihii Uganda ay ka xanaaqday oo ahaa inay taageero siiso jabhadda ka dagaalanta koonkada dimuqraadiga ee M23 taasoo ay ka carootay dalka Uganda kadib markii lagu eedeeyay in garab ay siiyaan tahriibayaal Soomaaliya ayaa ku waxyeelooba ama ku geeriyooday inta u dhaxaysa xeebta isku xirta Liibiya iyo dalka Talyaaniga tahriibayaashan oo ka ambabaxay dalka Liibiya ayaa marin ka dhiganayay xeebta u dhaxaysa Talyaaniga iyo waliba dalkaasi Liibiya ayagoona ay meel dhex marka ay marayaan la sheegay in doonida ay wateen ay la qalimatay la 40 tahriibayaal Soomaaliya ayaa la sheegay in halkaas ay ku geeriyoodeen ayadoo tiro kale oo haatan aan la sheegin ay la tilmaamayo inay dhibaatooyin ku qabaan gudaha badda dhexdooda guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dhawaajiyay in 17 bishan ka hor looga baahan yahay xukuumadda cusub inay si rasmi ah u hormaato baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo la hadlaya warbaahinta ayaa sheegay in loo baahan yahay in xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqay maalintii shalay iyadoo si rasmi ah u hortimaado baarlamaanka Soomaaliya ka hor 17 bishan aynu ku guday jirnay November taasoo uu sheegay in looga baahan yahay inay ku soo gudbiso barnaamijkeeda iyo waliba howlaha ay ka qabanayso dalka Soomaaliya qaar kamid ah bulshada ku nool gudaha magaalada Muqdisho ayaa maantay waxa ay siyaabo kala duwan ay kaga hadleen aragtidooda ku aadan xukuumadda cusub ee la magacaabay ee tiradeedu gaaraysa ilaa iyo 10 wasiir iyadoo maalintii shalay la soo magacaabay ilaa iyo xukuumad tiradeedu ay gaarayso 10 wasiir ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho qaarkood oo maanta mikrofoonka ay la dhaxmareen qaar kamid ah shaqalaha warbaahinta TV-ga caalamiga ah ee Soomsada ay sheegeen in qaarkood ay aad u soo dhaweynayaan ayagoo qaar kalena ay sheegay in loo baahan yahay in mar kale dib loo eego xukuumadani tiradooda ay sheegeen inaysan wada qancin karin bulshada Soomaaliyeed dadka intooda badan ayaa ahaa kuwa dhamaantoodba taageeray xukuumaddan cusub ee laga dhawaajiyay inay noqonayso xukuumadda rasmiga ah ee dalka Soomaaliya ay yeelanayso taasoo laga dhursugayo in ay ansixiyaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inta kadibna noqon doonto xukuumad ay Soomaaliya yeelato warkii saacada oo xilligan aad ka daawanaysiin saaxiibada hawada inagala socdo telefishinka caalamiga ah ee Soomsa TV waa inageenta waxa la kan idinkaga soo jeedinaya anigoo Cabdifataah Maxamuud Siyad Arizona waan idinkaga soo tabanaya telefishinka caalamiga ah ee Soomsa TV xafiiskiisa ku leeyahay magaalada Muqdisho wararkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan wararkeena soo socda oo aan idinkugu soo gudbin doona haddii ay bal laga helo